adduunka horumarkiisa iyo aakhiro horumarkeedu labaduba waxbarasho ku xidhan yihiin. nabiguna markuu ilaahay baryayay ducada qur-aanka ugu taalla waxaa ka mid ah waqul rabbi zidnii cilman, ilaah aqooni kordhi. bale nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadda markuu tukado subax waxyaabuhu laazimi jiree subax kasta u akhri jiray waxaa ka mid ah allahuma inii as'aluka cilman naafica wa risqan طayiban wa camalan mutaqabala. ilaah waxaan ku weydiisanayaa cilmi waxtara, camal aad aqbasho iyo arsaaq xalaal oo طayiba. subax kasta salaadda subax markuu ka baxo waa ducooyinku akhriyi jiray. diintu saasay sheegaysaa. haddaad rabto adduunka inaad horumarto iyo haddaad rabto aakhira inaad horumartaba labaduba waxay ku xidhan tahay maxay? waxbarashay ku xidhan tahay. si awgeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa nebi aadam markii loo soo diraya adduunka kan wacallama aadama alasmaa'a kullaha, waxbaa la soo baray isagoo aqoon le buu yimid. saas baa diintan islaamiga ah wixii ugu horreeyee soo dega iyadoo meesha ay ku soo degtay ahayd meel saxaaro ah waan aqooni ka jirin oo haqaafa ka jirin oo waxba ka jirin oo dad aqoon tixgeliya dadka ugu fog ah ayaa haddana qur-aanka wixii u soo hordegay wuxuu ahaa iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam. wax cilmiga iyo qalinka iyo waxaa ka warramaya. bale suuraddii saddexaad ama afraade xataa qur-aankay soo degta haddana nuun waalqalam wamaa yasturuun bay ahayd. yacnii iyadoo laga yaabo carabi waxay u baahnayd inay ugu badnaan lahayd waxyaabo kale ayaa qur-aankii ugu soo hordegay wuxuu ka warramayaa maxay? war maalin weyn baa dambaysoo dadku uu moogan yahay qur-aanka haddaad sidaa u akhridana lacalla beyj ay ka maqantay inaanu jirin. laba beyj oo kastoo iska soo hor jeeda wax qiyaamaha ka saabsani waa ku jiraan. ilaahayna siduu inoogu warramay cid inoogu warrantoo kale ma jirto. ilaahay wuxuu inooga warramayaa intaa in laynooga digo maalinta tan inana maalintaa indhali'i dhegali'i baynu ka taagannahay. waxaynu rabnaa inaynan maqal oo arag, waxaynu rabnaa inaynu adduunkan uun ku wareegno iyo inta taalla. maxaa xoola la shaqeeyey, maxaa tacliin la bartay, maxaa dumar la guursaday, maxaa carruur la dhalay, maxaa ka intan yare adduunka inaynu ku wareegno. waana la hubaa intaad geeriyooto inaad maalintan tegi doonto, waa la hubaa. nin dadka cibaadaysta ka mid ah wuxuu arkay nin dhallinyaro oo qoslaya markaasuu yidhi waryaahe miyaad maqal buu yidhi inay qur-aanka ku jirto wain minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya. miyaad qur-aanka ku arag buu yidhi in ilaahay leeyay mid idinka midi ma jiro ilaa iyo naarta xaggeeda waa loo aroorinaya. dee jidka siraad baa ku dul yaalla, naarta waa is arkaysaa. miyaa laguu sheegay buu yidhi inaad gelayso naartaas meesheeda soo arkaysa waa laguu sheegay. inta ka badbaadaysa inaad tahay miyaa laguu sheegay? uma nunaji aladiina ataqow wanadaru aalimiina fiiha jathiya. inta badbaadaysa inaad ku jirto adiga ayaa kuu sheegay buu yidhi maxaad la qoslaysaa? maynan ogin inta badbaadaysa inaynu ku jirno. ilaahayse waa ka baryaynaa subxaana. adduunkaynu maanta ku loonnahayna cabsi iyo dhib iyo mushkilada ay ka taagantahy. afarteeda dacalbana muslim ooyaya mid sakaraada iyo mid ilmaynaya mid dhintay iyo mid la sii sida uu ka muuqdo. weliba intii ahlu xaqa sheeganaysay u badan ee ahlusunna waljamaaca ayay u badan tahay inta maanta caalamka la kadeeday. in kuwii haystay baa kadeeday xukaamta u ahaa, inna kuwii gaaleed baa kadeeday, inna ahlu bidac gaale u soo raacday baa kadeeday. isku wada daro waxaasoo kadeedina uu dunida taagan yahay.